kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa gabi ahaantii barnaamijkeena caawa waxa uu ku saabsan yahay xaalka bariga dhexe oo halis weyn iminka laga soo sheegayo in dagaalkii uu sii kululaanayo ayaa la sheegayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay haddaan idinla wadaago waxaa la leeyahay telefishinka alcarabiya wuxuu leeyahay duqaymo culus ayay maraykanku sameeyeen oo cusub iyagoo ku qaaday iiraan waxaana la sheegay in qaar ka mid ah ay dhinteen ciidanka ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan oo mid ka mid ah uu halkaa ku dhintay duqaymaha haddaba ciidanka maraykanka ayaa dhowr goobood oo iiraan ku yaalla weeraro ku qaaday saacadihii lasoo dhaafay halka tahraan iyaduna ay weeraro ku qaaday dalal ay ka mid yihiin baxrayn kuweyt urdun qatar iyo meelo kale haddaba dhanka kale warar kale oo soo baxay goordhow waxay sheegayaan weerarka maraykanka uu ku qaaday iiraan inay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka iiraan kuwaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen gobolka layidhaahdo khoostaan oo ku yaala galbeedka iiraan halkaasoo weerarada maraykanka ay bartilmaamaysadeen sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee layidhaahdo irna haddaba ciidamada taabacsan ilaalada kacaanka iiraan bayaan rasmiya oo ay soo saareen waxay sheegeen in ay arrinkaasi jawaab kulul ka bixin doonaan oo ay maraykanka gacmahooda ku ciqaabi doonaan sheekadu markaa maraykanka muxuu sameeyey weeraro cusub weeraradaasi waxaa ku dhintaa la leeyahay hal meel askari ilaalada kacaanka mid kale 3 kale oo ilaalada kacaanka marka weerarka waa soo kululaanaya iiraan marka waa xanaaqday baashii ciyaar waa dhaaftay aan ku duqeeyo waa ku duqeynaya filimka u dhaaf iiraan waxay cabaysatay gantaalo waxay haysataa la yidhaahdo kruuska dhanka baxriga ama badda ay haystaan gantaalahaas marka waa kuwii hadda ka hor ay nagta kaga saareen maraakiibtii waaweyneed ee diyaaradaha xambaaraya maraykanka ee ay halkaa kaga eriyeen waa kuwa maraykanka uu ilaa hadda ka baqayo inuu soo maro hormus oo uu gacan u taagay gantaalihii ayaa marka la soo bixiyey makhribkii waxaana lagu asqaysiiyey lagu garaacay qaar ka mid ah maraakiibta maraykanka ee ku sugan baxrul carab meesha la yidhaahdo badda carabta ilaa hormus meel ku dhow ilaa badweynta hindiya ayay u carareenaa leeyahay maraakiibtii waaweyneed xaaladdu marka waxay u muuqataa cirka ayay isku sii shareertay haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey tallaabada iiraan ay kaga jawaabtay weerarada cusub haddaba ciidanka iiraan ayay sheegtay wargeyska telefishinka alcarabiya wuxuu yidhi ciidanka iiraan waxay qaadeen weerar ay isticmaaleen sawaariiqda garbaha leh iyaga oo ku qaaday maraakiibta maraykanka ee ku sugan badda ayay ku qaadeen ayaa la leeyahay haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay ciidamada iiraan ayaa weerar ballaaran oo sawaariiq kuwa garbaha leh ah oo dhowr xabba ah ku weeraray maraakiibta maraykanka ee ku sugan xeebaha badda waxaana la sheegay telefishinka iiraan inuu si rasmiya u soo bandhigay weerarkaas afhayeenka iiraan ciidamada waddanka iiraan ayaa sheegay in ciidanka iiraan ay sawaariiqda garbaha leh ku garaaceen maraykanka maraakiibtiisa ku sugnaa dhanka baxrul carab waxaana la sheegay in ay la kulmeen mid ka mid ah gantaalaha ay ku dhacday markab la yidhaahdo kuwa dagaalama oo uu maraykanku leeyahay in markaa nagta laga saaray oo halkaa lagu qararamsaday sheekadii marka waa kululaatay markabkii marka maxaa leeyahay maraakiibtii dibugurashay bilaabeen badweynta hindiya aadaan iyaga markii meelahan markii nabad jirto oo xabad joojin jirtay meelahan ku feystayaan laakiin markii gantaalahan alaabtan bilaabato way cararayaan waxay tegayaan badweynta hindiya
halkaasay marka ay maaragtay joogayaan marka xaalku marka weeraradaas kulul ayaa caawa la isdhaafsaday iyadoo sidoo kalena laga baqayo in dagaalka uu faraha ka sii baxo waayahay Israa'iil marka iyadu xaalkeedu waa sidee dagaalka ma soo gashay mise wali ma soo galin Mareykanku wuxuu leeyahay joog ha isku soo galin dagaalka wali sheekadu maartay wali way joogaale iyaduna waxa leedahay heegan galay ku haysa hadaba marka ardaydu soo wararkii ugu dambeeyay Israa'iil laga soo qoray waxa la sheegay in heegan culus uu ka jiro magaalada Tel Aviv iyadoo u diyaar garoobaysa wareeg kale oo dagaal oo saddexaad oo ay la gasho Iran wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay dhankoodu inay diyaar u yihiin dagaal saddexaad oo Iran iyaga dhexmara abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa isaguna sheegay in ay filayaan dagaal inuu qarxo dhanka Lubnaan iyo Iran intaba iyaguna ay u diyaarsan yihiin sidii marka ay iskaga difaaci lahaayeen dagaalkaas nimankaanu marka maxay leeyihiin anagu ta'ahub ku jirnaa diyaar garow heegan aan ku jirnaa macnaha iyagu hadda waxay iska dhigayaan inaysan dagaalka qayb ka ahayn ku jirin laakiin heegan aan ku jirnaayo sanaba baasho haday sii socoto xabadda ma la fursan doonay ma la isdhaafi doono marka waa la iska raaci doonaa marka waxay leeyihiin wareegii saddexaad binoo bilaabanaya anaga Iran ayaga laba jeer hore la istijaabiyay hadda marka waxay leeyihiin wareegii saddexaad ajawla thalitha la wareegii saddexaad amar dhow isku farasaarayna dhankii marka diblomaasiyadii Pakistan dadaalkii ay waday heshiiskii laga shaqeeyay muddo la waday waa la heshiiyay ilaa meesha Pakistan ilaa Switzerland ma xagee ku dambeeyay hadaba marka waxa leeyahay wali ma quusan Pakistan wali waxay rajo ka qabtaa in waxa kan meesha lagu joojiyo oo wada hadalkii lagu soo laabto si aysan sheekadu faraha uga sii bixin xaalku faraha duu ka sii baxo way sii xumaanaysaa ilaa hadaba marka waxa wada hadlay ninka la yiraahdo Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo taliyaha ciidanka Pakistan General Munir ninka la yiraahdo hadaba marka ardaydu soo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Araghchi ayaa la hadlay warar bixinadii ugu dambeeyayna ay kala qaateen taliyaha ciidanka Pakistan hadaba wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa waray caawa soo saartay waxay sheegtay Araghchi inuu la hadlay taliyaha ciidanka Pakistan waxayna ka wada hadleen waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay mandiqada iyo xaalku hadda sida uu yahay hadaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa waxay sheegtay in Araghchi uu si kulul u cambaareeyay weerarada cusub ee Mareykanka uu ku soo qaaday Iran wuxuuna u gudbiyay taliyaha ciidanka Pakistan in Mareykanku si cad u jabiyay oo ku xadgudbay heshiiskii hore loo gaaray Araghchi ayaa ku nuuxnuuxsaday taliyaha ciidanka Pakistan in weerarada Mareykanka ee Iran ay ku qaadeen ay toos u jabiyeen shuruudihii heshiiskii isfahamka ah wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa u arkay qirashada Washington inaysan u hoggaansamin heshiiska waxaana uu sheegay intaasi ay meel ka dhac ku tahay heshiisyada la gaaray iyo kuwa xitaa mustaqbalka la gaari doono Araghchi ayaa uga digay taliyaha ciidanka Pakistan تعبر كستا أو أي قاضي كران أما طلابة كستا أو أي قاضي كران إذا ماذا مريكا إن مركا أي كيني كتو دباتو وين هدي أنا باكستان أي سكورتي عراق جوحو شيء قوانك إذا ماذا قلب كسدا إيران إني استفاعيان إن مرنا بلغان لابن دورين ماذا بناني الدلك يشرف كشعبك أيو شيء إيران إن أي استفاعي دولتو وأيه marka xaalku caawa halkaas uu maraya Pakistan wali rajay qabtaa wada hadalkan lagu soo laabto laakiin meel maraakiibtii nagta laga saaray jugta la iska galiyay Iran ciidanka ilaalada kacaanka laga dilay xaalku marka waa loo yaabaa waliba saameyn weyn ay arintu yeelatay oo
dowlado badan ay kusii fiday oo iiraan ay duqaynaysaa baxrayn kuwait qatar urdun ciraaq meel ay dhaaftay male keliya waxaa haray imaaraadka iyo sacuudi arabiya iyo dowladahan oo dagaaladii hore meelihii ay weerari jirtay iiraan ka mida haddaba xaalku siduu ku dambayn doonaa ma laysku noqon doonaa caawa mar kale difaaca laysugu jiraa maraykanku ma weerar kale soo qaadi doonaa haddaba waa ka warsugaynaa wixii xaalku meesha uu ku dambeeyo haddaba wixii soo kordha barnaamijyadayda dambe haddii alla idmo ayaan idinkula socodsiin doonaa akhyaaray wixii cusub halkan ayaad kala socon doontaan innagoo idiin soo gudbanaynaa barnaamijyo xaqiiqada ku salaysan adinkoo heli doona macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dagaalka gobolka bariga dhexe laygareeya oo sheergareeya barnaamijka si aad mar walba u hesho barnaamijyadan haddaad nagu cusubtahan subscribe-ka ka ilooba youtube-ka facebookana fologare inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan